xaflad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen in ka badan 40 arday oo qaybaha culuumta ay ugu horeyso saxaafadda ka bartay college-ka Al-Cimra ee xaafadda Islii ayaa waxa ay ka dhacday howlka weyn ee hotelka Andalus xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. munaasabadan oo ay isku soo dubradeen maamulka iyo macallimiinta college-ka Al-Cimra ugu horeeyo maamule Cabdiraxmaan Fure British ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, saxafiyiin rugcada ah, waalidiin aqoon-yahano, hay'ado caalami ah oo ka shaqeeya howlaha saxaafadda iyo qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadda Islii. xildhibaan Cawad Cashara oo ah gudoomiyaha guddiga warfaafinta u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya oo munaasabada ka hadlay ayaa dardaaran kooban u jeediyay ardaydii baratay saxaafadda ee shahaadada qaadanayay. مناسبة قلجبتنا ومستقبل ونكسن وأباهن كرتي يعلمي أسي كردستان ووقت كان لوجه سيدي وشيء ومعلم كي أبوان كالجورية إن لو باهن يهي إن يهوشي لكل عنتهي دلال بدن يحلكسنا بدن iyo aqoonta oo aad kordhisaan waqti kastaba talaabada aad qaadaysaan aad la socotaaniin isbeddelka casriga ku jiro oo xagga tiknoolajiyada iyo xagga aqoontaba iyadoo la idinka baahan yahay haddaad saxaafadda ku jirtaaniin inaad xoojisaaniin aqoontiina ku saabsan dadka dhexgelistiisa iyo war soo saarista warka iyo hubintiisa. sidoo kale waxaa madasha qalinjibinta isna ka hadlay qoraaga suugaanyahanka Soomaaliyeed Maxamed Faarax Hidaaja kaas oo ku booriyay da'yarta inay saxaafadda u baran in lacag ay ku helaan balse hobbi ahaan ay u bartaan. misaalan siinaya macnaha hadda ku socotaan inaad ka shaqeysaan oo aan ka qabtay idaacadaha qaarkood waxaad ka soo qaadaan mesela qofku markaan leeyahay qofku waa inuu bartaa af Soomaaliga أنا أفكر وحكوش شيء ولا عادة هذول إنجليز كل شقينا وين إنجليز في عيق يعني هذول سواحل كل شقينا ثلاث شهور واحد يستيقظ نله يقول بيقول هذا ما لك واقع جريدة العربي واحد يدرك عربته كله ما بيصير إن حالة الصومالية لوك جيستان وا جيستان وحول هذا يقول هذا لوك يشان لكن كان كجيستان بقى في عنه يقول هذا يبقى هاي يا أبا يبقى ما أنفعه أنفعاني مثل هو يبقى هاي يا أبا أفكر تبارك الله أفكر هذا هو يلا كل هذا شيء يقول لك إن ما أفكر هذا كل هذا شو منا وين البركة وقال كلام نوع يعني كل ورباهيته كشقيته وين يكون نقطة هبي أنت عايز تقول نقطة مهرة Tom oo ah qaybsanaha ururka saxafiyiinta CBJ ee bariga Afrika u qaabilsan oo munaasabada ku sugnaa ayaa waxa uu ka warbixiyay howlaha saxaafadda. I really want to say that all of you who are now graduating with journalist degrees, I really tip my hat off to you if I had a hat right now. mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabada qalinjibinta ayaa waxa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Abiin, suxufiyiinta kala ah Cali Muuse, Cabdiqaadir Mursal, Saalax Soona iyo waliba qaar kale oo badan kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay saxafiyiinta cusub ee iminka ku soo biiraya masraxa saxaafadda. waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay saxaafadda oo cabiraya dareenkooda kadib markii la gudoonsiiyay shahaadooyinka. kale magacii waxa la Cabdullaahi Nuur Cismaan ay waxa ku macreeray Cabdullaahi Oscar runtii maanta waxa ay muuqata farxad aad u ballaaran maxaa yeelay waxaan helay shahaado tusinayso intaas wax baranayay waxa u madcilna macallimiinteeda dhammaan warbaahinta ka soo qayb gashay ilaahay baa yaa mudan waxaan u madcilnayaa macallimiinteeda sida fiican waxay soo bartay magacayguna waa Hayaan Daahir Ibraahim waxa ku magac dheer Hayaan Teeno aad baan u faraxsanahay maanta inaan shahaadadaas qaato. xafladan ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayad ka hadlaysay qiimaha saxaafadda runta ay u leedahay bulshada iyadoona ay ku soo gabagabowday jawi wanaagsan. Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib, Royal TV, Nairobi.